10 arrimood oo ninka looga baahan yahay inuu sameeyo habeenka aqalgalka. Habeenka aqalgalka, arooska, habeenka koowaad sida caadada ah, habeenka koowaad ee arooska waa ka duwan yahay habeenada kale. Waayo waxaa isku cusub lamaanayaasha isguursaday, khaasatan gabadha caruusada ahi, waxay dareentaa baqdin iyo yaxyax tiro badan. Welwel saa'id ah, waxaana kabata xishoodka. Ninka waa in uu la socdaa dareenka xaaskiisa cusub, noloshuna ku cusub tahay. Isku day in aad dareensiiso in aysan biqin, garabkeedana joogto, wehel iyo lamaanana u tahay. Waxyaalaha ugu badan oo gabadha cabsida ku abuuraya waxaa keena. Waxay arkaysaa ummad badan, taasna waxay keentaa in ay dareento baqdin saa'id ah, farxaduna way yaraataa. Waxay cabsi ka qabtaa ninkeeda oo aysan garanayn waxa ay kala kulmi doonto. Gabadha bikrada ahi waa ka duwan tahay gabadha carmalka ah. Gabadha carmalka ahi waxay horay u soo martay nolol la midatay habeenka ku jirto. Waxayna noqonaysaa qof aan baqdin ka qabin habeenka koowaad ee aqalgalkeeda, balse cadradu way ka duwan tahay midda carmalka ah, waayo waa habeenkii ugu horreysay ee ay u hooyato hoygeedii ay ku soo barbaartay, waxayna ka tagtay aabbaheed, hooyadeed, walaalaheed, dhammaan asxaabteedii. Waxay gashay jawi cusub, nolol cusub, guri cusub iyo qoys cusub. Talooyin iyo nasteexooyinka ku socda ninka caruuska iyo siduu u dhaqmi lahaa habeenka aqalgalka. Markaad la kulmaysid caruusadaada ama aad ka haysanaysid, bisinka akhriso. U dhoola cadee, u qosol, gacanteeda qabso, adoo hadal macaan ku oranaya sida waan kuu soo xiisay xabiibtii, ama adiga haddaan ku helay wax iga maqan adduunka ma jiro iyo. Xishoodka gabadha waxaa inta badan dhacda in gabadhu aad u xishooto iyadoo ka cabsi qabta xaaladda cusub ee markaas ay gashay iyo ninka ay u hooyanayso. Badqin xaaska kolka loo soo galbiyo guriga waxay dareentaa murugo saa'id ah, waayo waxay ka cabsi qabta wejiyada badan ee isheedu qabanayaan iyo sawjkeeda oo markaas ku cusub. La soco in caruusadu waxay u baahan tahay habeenkaas ay tahay naxariis iyo xasilooni aad siisid iyo jacayl. Markaa u fiirso hadallada iyo taabashadaada. Guriga markaad gashaan oo aad keligiin noqotaan, waxaad siisaa caruusada waxay cabto, inta ay wax cabayso la hadal oo isku day inaad ka qoslisid ama hadal macaan maqashiisid. Dhunka markaad guriga soo gashaan, u muuji inaad ku faraxsan tahay, iyada hadal ahaan ku muuji mar walba in yar marka laga soo wareego dhunka caruusadaada. Sii fursad caruusadaadu inay keligeed labisato oo isku ka diyaariso, ha oran maxaad iiga xishoon, ninkaagii ayaan ahaye. Adigana dharkii kuu diyaarka ahaa xiro oo udgoona marso, cashadana soo dhig, soo fariisi caruusadaada. Hadday cashada kaa diido inay cunto, adiga afka ugu gur adoo naxariis muujinaya. Qolka hurdada markaad keligiin noqotaan, sii hadiyada aad u diyaarisay ee aan soo sheegnay. Waxaa laga yaabaa in gabadhu ay dareemayso xanuun ama ay qabto caado, haddaba hadday kuu dan sheegato ha ku khasbin gabadha in xoog wax uga qaadato. Iska ilaali in gabadha aad kula degdegto galmo iyo in degdeg wax kasta kugu siiso. Inta aydan xaajadiina gudan waa inaad siisaa naxariis badan iyo dhunkasho, si naxariis leh u taabo, fiiri xaaladeeda oo dhagayso waxay ku tiraahdo, una tudh haday baqayso ama ay walwalsan tahay, ihtimaam sii dareenkeeda. Haddii aad nagu cusub tahay, sabskareeb saar. Waxaan soo wadnaa tixaane ku saabsan alif ilaa ya ku saabsan qaabka ugu fiican ee gogosha lamaanaha oo dhan walbo taabanayso. Sidoo kale ma ku ilaabin haddii aad bahal yar ama mid weyn leedahay. Sidoo kale dhanka dumarka haddii aad tahay dacas waaweyn ama bikro, kulli waxaan idin ballan qaadaynaa raaxo adduun iyo tii aakhiro.